bilowga filimka waxaan arkaynaa nin lagu magacaabo Alex Fernandez waxaana istiin qolo tuuga ah waxa ayna rabeen isla markaas in ay dilaan asigan waxa uu dhahayay inaad dishaan mooyee xal kale ma lahan miya oo aan ku heshin karno anaga iyo idinka nasiib xumasa dhamaantooda dilkiisa ayay isku diyaarinayeen horse inta aysan dilin waxa goobtii ay ku haysteen Alex imaanayo nin magaciisa iyo meel uu ku imaaday ba aan la garanaynin tuugadii ayuu ku dhahayaa ninkan waxba kuma sameyn kartin oo aniga ayaa halkan u jooga aniga ayaana idinka badbaadinayo ayagan waxa ay u maleeyeen in uu la kaftamayo waxa ay leeyihiin la arki doone dhintaaba la aasi doone dagaal ayaana meeshii ka bilaabanayo asigana mid ayuu u ugaarsanaya dhammaan burcadii halka fiigana lama arkayo isla mar ahaantaasna ugu dambeyntii Alex asiga ayaa soo badbaadinayo Alexna markii la soo badbaadiyo waxa uu leeyahay adiga darteeda ayaa naftaada baxar u gelisay ee ii sheeg maxaad iiga baahan tahay adduunkana ma jiro qof maalaayacni ama asxaan si free wax kuugu sameynayo ee ii sheeg waxa aad iiga baahan tahay haddii aan awood waa aan kuu sameynaya isla markaasna ninka waxa uu leeyahay aniga naftaada iyo hantiba kaama rabo ee keliya waxa aan kaa rabaa inaad information i siiso isla markaasna waxaana la barayaa ganacsada Roy lagu magacaabo asigana waxa uu ahaa milkiilaha shirkadaha Roy Group lagu magacaabo ee dalka India ku yaala waqti xaadirkaasna qolo ganacsata kulan oo la lahay ayuu ka imaaday isla mar ahaantaasna gurigiisa ayuu u socday taleefan uu ku hadlayay ayuu ku mashquulsanay hase ahaatee shil ayay galayaan oo gaari weyn ayaa qaadayo halkaas ayuuna Roy ku geeriyoonaya hase ahaatee dilkani waxa uu ekay mid qorshaysan wax yar kadibna wiilkiisa oo Fishog lagu magacaabo ayaa goobtii soo gaarayo asigana waa uu xanaaqsanay waxa uu ku cilbaxaya kuwa meesha joogeen oo dilka aabihiisa looga shakisanay saddex qofood ayayna ahaayeen saddexdooda bana hal mar ayuu u dhameynaya dhanka kale waxaana la barayaa gabar Amrita lagu magacaabo ayadana boolis ayay ahayd isla mar ahaantaasna kii saddex nin oo la dilay ayay baaritaan ku haysay xoogaa yar cadeymo ayayna ka helaysaa waxa ayna leedahay qofkii dilkan geystay waxa uu ahaa qof ka taxadiray aadna u aqli badan goobtii booliska ay baaritaanka ka hayeen waxa imaanayo ninkii filimka bilowgiisa aan ku soo arkaynay asigana Ashok ayaa lagu magacaabaa waxa uuna ka mid yahay ciidamada booliska asigana waxa lagu xilwareejinayaa kiiskii ay Amrita faraha kula jirtay taliyaan waxa uu dhahayaa kiiskan iga soo gabagabay dambiilayaashan waa inaad si degdeg gacanta ugu soo dhigtaa run ahaantiina taliyaha waxa ay u muuqatay in uu asiga kalsooni aad u weyn uu ku qabo waxaana jirtay qasnad uu Roy lahaa qasnadaasina waxa ay ku furmaysay hal furaasna waxa uu ahaa black box waxa uuna yaalay meel ka mid ah magaalada Mumbai tuugo badan ayaana rabtay furahaasi in ay gacanta ku dhigaan kadibna ay dhacaan hantida uu Roy leeyahay hase ahaatee hantidhowrayaashiisa iyo wiilkiisa ayaa midaasi ka taxadareen Ashokna run ahaantii kiiska uu gacanta ku hayo waa uu adkay asaga iyo saaxiibadiisana waa ay dadaalayeen Amritana Ashok maba aysan aaminsanin waxa ayna u haysatay nin iska dheedheelayo hase ahaatee markii laga soo tago dhanka shaqada ayada jecel ayay u qaaday si xad dhaaf ayayna u jeclay hooyadeeda iyo aabaheedan ayada oo yar ayay ka fogaadeen waqti xaadirkaasna wehel ma aysan haysan waxa ayna rabtay Ashok in ay u soo dhawaato faraanti aad qaali ah ayayna u keenaysaa waxa ayna leedahay ii xafid faraantigan waxa uuna xoojin doonaa jaceylka aan aniga ku qabo iyo midka aad adiga ii qabto Ashokna waxa uu la kulmayaa dambiile ay booliska ku daba jireen oo aad u halis badan asigana waqti xaadirkaas oo lama dhaqmayo sida nin askari oo kale waxa uuna iska dhigayaa shacab caadi ah isla markaasna qamri ayuu ka dharjinayaa sir ayuuna ka rabay in uu ka helo waxa uuna weydiinaya waxa uu ka shaqeeyo asigana waxa uu leeyahay waxa jirta qasnad aad u weyn oo hanti aad u fara badan ay ku jiraan qasnadaasina hal furo ayay leedahay waxaana lagu magacaabo black box waxaana rabaa in aan furahaasi gacanta ku soo dhigo isla markaasna furahaas markii aan helo waxaan rabaa qasnadaasi in aan dhaco hamigeygii ugu weyn waxa waaye inaan taajir noqdo muuqaalka xiga fisho qasnada aabihiisa furaheeda waxa uu u soo dirayaa gabar lagu magacaabo Karti asigana aad ayuu ugu kalsoonay waxa uuna leeyahay adiga ma aha cid kale kuma aamini karo furahaasi waxa ayna ahayd la taliyaha aabihiisa markii uu geeriyooday kadibna wiilkiisa ayay la taliyo u noqotay furahana marka ay soo qaaday kadib waxa soo weeraraya tuugo aad u halis badan waxa ayna rabeen furaha black box lagu magacaabo in ay ka dhacaan Ashok iyo saaxiibadiisa ayaana dabagal ku hayay halkaasna dagaal aad u qaraaran ayaa ka bilaabanayo inta askartii ay tuugadiina ay isku mashquulsanaayeen ayada meesha waa ay iskaga soo tagaysaa black boxkiina waxa ay dhigaysaa isla magaaladii Mumbai bangi ku yaalo dhanka kale booliska ninkii ay ka shakisanaayeen dabagalkana ay ku hayeen waxa uu rabay black boxka in uu qaato bangigii uu yaalan waa uu ogaay ayagana waa ay ka barhayeen waqti xaadirkaasna howlgal ayay isku diyaarinayaan Amrita iyo askar kale ayaana goobtii soo aadayaan Ashokna xarunta ayuu aaga soo haraya kor ayuuna kala soconayaa saacadooyin kadibna howlgalkii ayaa bilaabanaya tuugiina black boxka ayuu gacanta ku soo dhigaya saaxiibkiisa ayuuna farta ka saaraya laba gaari ayayna kala saarnaayeen booliskana waxa ay rabeen labadooda
labadaba in ay gacanta ku dhigaan. Ashokna midaasi ayuu ka faa'iideysanayaa, dhammaan xarunta booliskana dib ayuu qabadsiinayaa. tuugi ninkii la shaqaynayay uu black boxkana gacanta uu u soo saaray Ashok ayuu u shaqaynayay, asigana Ashok ayuu gacanta ka sii saaraya. taliyaha ciidamada booliskan waxaa information ku soo gaarayo Ashokan ayaga la shaqeeyay in uusan ahayn Ashokii loo soo diray, kaasi oona loo baahnay in uu si qarsoodi ah ku shaqeeyo. halkaasna waxaan ku ogaanaynaa Ashok in uusan ahayn nin boolis uu yahay tuug aad u halis badan. magaciisa saxdan ma ahan Ashok ee waa Saho, halka ninka tuuga loo maleynayay ay ciirsanayeen booliskana uusan ahayn tuug, asigana nin boolis ayuu ahaa, si qarsoodi ayuuna ku shaqaynayay. magaciisana Ashok ayaa lagu magacaabaa. qorshahan oo dhanna Saho ayaa degay, waxa uuna iska dhigay ninkii booliska ahay ee sida qarsoonida ah ee ku shaqaynayay uu taliyaha soo diray. taasina waxa ay ahayd taxadardaro ay sameeyeen ciidamada booliska Indiya. dhanka kale tuuga weyn ee Defraj lagu magacaabo iyo ciidamadiisa waxa ay raadinayeen ninkii dhacay black boxka. Saho iyo Amritana dib ayay u kulmayaan, ayadana xabad ayay ku salaamaysaa, hase ahaatee kuma dhufanayso. waxayna leedahay waad i khiyaantay oo khiyaanoole ayaa tahay, hase ahaatee keligay ima khiyaamin, xitaa booliska waa aad khiyaantay. ayagoo halkaas isla joogaana waxaa soo weerarayo ciidamo aad u halis badan, kuwaasi oo dhanka Defraj ka socdaan. waa ayna xabadeenayaan, in muddo ayayna xabadeynayeen, hase ahaatee ugu dambeyntii waa ay ka badbaadayaan. Saho iyo Amritana waa ay heshiinayaan, balse Amrita qorshe kale ayay lahayd. waxa ayna rabtay booliska in ay gacanta u geliso Saho, waxaana soo diray Ashok. Defrajna Saho sidaasi aagama harayo oo mar kale ayuu dib u soo weerarayaa. hase ahaatee markaani ciidamadiisa Amrita ayay xabad ku dhufanayaan, Sahona gacanta ayay ku dhigayaan, balse Amrita ma geeriyoonayso, dhaawac oo keliya ayaana soo gaarayo, waa ayna ka badbaadaysaa xabadii lagu dhuftay. Defraj iyo ciidamadiisana waxa ay ku rikaateynayaan haddii uu rabo in Amrita dib loo soo daayo in uu black boxka u keeno, balse Saho Roy wiilkiisa ayuu heshiis la galay, islamar ahaantaasna asiga ayuu ku xilwareejiyey black boxka. waxa uuna iska dhigayaa in uu Defraj la shaqeynayo. ugu dambeyntiisa waa uu ku soo jeesanayaa. Amritana ayagoo dili rabaan Fishok ciidamadiisa ayaa ka soo gaarayaan, waa ayna ka badbaadinayaan. Defrajna dhammaan lacagihii uu Roy ka soo dhacay Saho ayaa dib aaga soo celinayo, waa uuna la soo goosanayaa. Ashok iyo ciidamada booliskana Saho ayay daba taagnaayeen. Ashokna waxa uu daba taagnay Saho, waxa uuna rabay in uu xero, islamarkaasna David familkiisa ayuu afduwanayaa, waa uuna u cagajuglaynayaa. waxa uuna leeyahay haddii aad ninkaas gacanta ii soo geli waasay familkaadu waa ay ku daayeen. islamarkaasna waxa uu u sheegayaa dhammaan Saho qorshooyinka uu leeyahay iyo waxa uu sameyn rabo. intaas kadibna waa uu ka tagayaa, hase ahaatee marka uu Saho u tago waxa uu u sheegayaa Ashok sida uu ula dhaqmay. waxaana ogaanaynaa David familkiisa in aysan ahayn familka uu Ashok gacanta ku hayo, familkaasina ay yihiin kuwa feeg ah uu Saho uu u sameeyey saaxiibkiisa David. Defrajna lacagihii uu Roy ka dhacay dib ayaa Saho aaga soo celinayo, konteenara ayuuna soo saaranaya, waa uuna la soo baxsanaya. hase ahaatee Ashok iyo ciidamada booliska ayaa daba taagnaayeen, konteenarada ayayna hor istaagayaan. waxa ayna u maleeyeen in ay gacanta ku dhigeen, hase ahaatee buundada ay hoos taagnaayeen oo dhan ayaa soo dumaysa, dhammaantoodana halkaasi ayay ku baaba'ayaan. Sahona waxa uu rabay in uu meesha iskaaga baxsado, mid ka mid ah ciidamada Defraj ayaana daba socday, yeesh ayuuna ku bursanayay, waxa uuna rabay in uu dilo. ugu dambeyntiisa waa uu ka baxsanayaa. booliskiina marka ay helaan konteenaradii waxa ay arkayaan in aysan waxba ku jirin konteenaradaasi. Sahona qorshe fiican ayuu degay, konteenaradii ay booliska gacanta ku heeyeen ma aysan ahayn konteenaradiisa, kuwiisana dhankii ay booliska joogeen ma ahe dhanka kale ayay ka baxeen. sidaas ayayna ugu badbaaday hantadii uu Defraj ka soo dhacay. hase ahaatee asiga ugu dambeyntii booliska ayaa gacanta ku dhigayaan. Defrajna taliyaha ciidamada booliska ayuu soo wacayaa, waxa uuna leeyahay Saho madaxiisa ayaan kaa rabaa, haddii kale asigoo nool waa inaad ii keentaa. taliyahana Saho ayuu soo wadaya, islamar ahaantaasna meel magaalada ka baxsan oo aad u halis badan ayuu keenayaa. halkaasna run ahaantii ciidamo kala daran oo aad u halis badan oo qamarjiyaal ayaa joogeen. waqtilxaadirkaasna Saho ayay garaacayaan, isagan waa uu xanaaqayaa sida loo garaacayay. markiisa ayayna noqonaysaa, dhammaantoodana gacanta ayuu saarayaa, waa uuna ka adkaanayaa. islamarkaasna Defraj ayuu meesha u fadhiisanayaa, weliba asigoo sugayo. Defrajna markuu yimaado waxa uu u maleeyey Saho in la garaacay, hase ahaatee ciidamadiisoo dhulka wada daadsan ayuu arkayaa. intaas kadibna waa uu xanaaqayaa Saho ayuuna ciidamo kale u wacanayaa, hase ahaatee ciidamadii asiga ayay ku soo jeesanayaan. Sahona Defraj waxa uu u sheegayaa dhaxal sugaha Roy in uu asiga yahay, asigana Roy uu dhalay, uuna og yahay aabihiisa in uu asiga dilay. dhulka ayaana ciriiri la noqonayo, waa uuna aamini weynayaa. ugu dambeyntiina meesha ayaa lagu dilayaa, waa uuna ka soo tagayaa. artii ayada xataana Defraj ayay u shaqaynaysay, marka ay aragtana Saho in uu Roy dhalay waa ay aamini weynaysaa. dhammaana Saho intii dilka aabihiisa lug ku lahaayeen waa uu baabi'inayaa, midna uma uusan naxariisin.
fariisan asigana ugu dambeyntii dibadda ayuu isoo dhigayaa ganacsatadii oo dhanna waa uu isbarayaa ayagana uma aysan maleynin Saho in uu Roy dhalay hase ahaatee ugu dambeyntii waxa ay ku qasbanaanayaan in ay aaminaan Amritan waddanka oo dhan ayay iskaga soo tagaysaa hase ahaatee Saho sidaasi aagama harayo oo meeshii ay joogtay ayuu ugu imaanaya waqti xaadirkaasna waxa uu sheegayaa wili jaceelkeedii in uu ku dambeeyo labadoodana mid ayay noqonayaan filimkeenana halkaas ayuu ku dhamaanayaa muuqaalkan waxaa idin qoray Maxamuud Mursal waxaan idin codeeyay idinna edit gareeyay Mohas waana aniga filimkan waxaa lagu magacaabaa Saho inta aan ka kulmeynana muuqaalkan muuqaalka xiga fi amaanillah